kusoo dhawow channelkayga Nahyan Cooking waxaa ka heli kartaa cuntooyin kala duwan isqurxin iyo waxyaabo kala badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabtayda kusoo dhawaada channelkayga Nahyan Cooking. ugu horeen asxaabtayda waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad igu xiran tihiin iyo dhiirigelisaan commentiga quruxda badan igu soo qortaan. maxaa idin wadaa maanta burjkeek shidan tahay ma fahanteen. codka aan samaysanayna codka waaye burjkada ku karinaya maanta hilib waaye, hilib geel waaye oo si yar yar loo soo jarjaray. weli sida codka oo Soomaalida u jarjaray lama soo jarjarin, nimanka laga soo gaday la soo jarjaray marka xoogaa waaweyn ay ka soo dhigeen. codka maxay ka yaqaanaan marka si xoogaa waaweyn u soo jarjareen. codka waaye laakiin xoogaa uu ka yara waaweyn yahay isay u jarjareen. marka waxaan ku karinayaa dhuxusha ku karka aniga wax badan waqti badan u karsamaa ma jeceli inaan ku kariyo because taagnaashaasna badanaa nacaya, ma jeceli inaan maanta oo dhan taagnaado meel. marka waxaan ku karinayaa dhuxulaan ku karinayaa. hilibkan dabka soo saaray, hadda hilibka digsiga le ku shubay, dabka le soo saaray. wax kuma darin biyo ah, biyo kuma daraayi, asigaa biyo dhalaay. kadibna waxaan sameynayaa waa daboolayaa. biyo ku darayaa, sorry biyo kuma daraayi, waa daboolayaa. asigaa biyo dhalaayo, hadhow biyo dhali doonaa. marka codka le waqaana ani wax kale ma aqaani. luqmad ama muqmadna dada u yaqaan. muqmad miya miya mas'al luqmad ama muqmad labadaasna qof dada u yaqaan, laakiin ani codka u aqaana. codka waaye, dadna kalaan kale u yaqaanaan. marka codka waaye, qof walba si u yaqaana. af Soomaali asiga tiro badan. marka ani codka le u aqaana. marka hilibka dabkan soo saaranay wax yar hanoo soo huuro, waan daboolayaa. marka hanoo soo karo waa isku soo laabanaynaa insha Allah. asxaabtayda hilibkii wuu karayaa, saas u karayaa, soo ma aragtaan wuu noo soo karay. weli waaye kow ma joogo, ani biyo kuma darin, asigaa biyahaan oo dhan dhalay. marka la daboolo hilibka biyo dhalaaya, si fiican u bislaanaya. marka hadda waa qasayaa. markaan qaso haddana waa daboolayaa, cusbo yaraan ku darayaa, kadibna waan daboolayaa insha Allah. waxaan kusoo darayaa cusbo. marka waa daboolayaa hanoo soo karo ilaa biyahan oo ka gursanayo. dabka noo saarnaanaya, markuu biyaha noo gursado aan isku soo laabanaynaa insha Allah. asxaabtayda weli wuu karayaa, biyi weli ma ka dhamaanin, kow xataa ma joogo. markuu noo soo karo biyaha ay ka soo dhamaadaan, marka dambaysa biyuu sii dhalayaa. waxaan rabaa biyaha inuu gursado, biyo inuu keeno, biyihii uu keenan uu gursado. biyihii marka ay ka qalalaan saliid ku shubi doonaa. qofba si u karsada, anisaana u karsadaa. dadna waxay sameeyaan asoo ceeriin ah ay saliidda ku shubaan. marka ani saliidda ma ku karinayo, gadaala ugu daraya, waa ila arki doontiin. hadda markuu biyo dhalo, biyihiisa uu ku bislaado, hilibka si fiican ugu jilca, kadib aan saliidda ku shiilayaa. haddana insha Allah waa isku soo laabanaynaa. hanoo karo waa daboolayaa, biyaha sii dhala. haddana marka oo biyo dhalo oo biyihiisa gursado aan saliid ku shubi doonaa, saliidan aan ku shiili doonaa insha Allah. hanoo soo karo biyaha gursado insha Allah waa isku soo laabanaynaa. asxaabtayda hilibka biyaha way kasii yaraadeen hadda weli, laakiin dheecaan yar uu leeyahay, soo ma aragtaan weli waaye. marka dheecaanka ha soo gursado. dheecaanka markuu ka qalalo insha Allah isku soo laabanaynaa.
dheecaanka markuu ka qalalo insha Allah isku soo laabanayna wali dabka u saarnaa ilaa markii cabaar kala maqneen marka si fiican ha u jilco hilibka dheecaankana ha gursado ha ka qalalo marka biyaha ka qalalaan aan saliid ku shiili doonaa insha Allah waa isku soo laaban doonaa insha Allah haatayda diyaar waa hilibka biyaha uu soo gursaday sama aragtaan uu soo qalalay marka waxa ku darayna hada saliidi bismillah ana saliida ku karsanaya hada aad subaq waa karsan kartaa haatayda marka saliida ku soo shubay waa qasaya ma daboolay hada marka saliida ku shubo saliida ma ku daboolay because uu dhididaya inuu shiimaal raba Soomaali inuu biyo dhal lama rabo marka daboolay sana ahaado siisa u shiilmo oo soo laabanayna insha Allah haatayda uu karaya oo aragtaa Soomaali saliida hilibka isku shiilmayaan marka waxa ku soo daraya inta waxa ku haystaa heel ku soo daraya arfis la waaye hadii arin waa ka dhaaf kartaa qofka qof walba si uu karsadaa laakiin ani saana u karsadaa gabar Soomaali ah oo qofka kariyo aqoonin ma jirto ila tahay laakiin iskaabulada iyo dadka aqoonin loo faa'iideynaya ma garatay hasa dhihinin hadhow ilaahay ma soo waalatay qofka qof kasta kari karay baraysa ay soo dhihinaya hadii idinka taqaanin dad aqoonina jiro marka dadka aqoonin loo faa'iideynaya faa'iideysta insha Allah marka haloo soo shiilmo insha Allah marka ugu dambaysa in tusi doona hada saan la soo shiilaya wax kale kuma daray bas inta la soo shiilaya heelkii carafta si fiican inuu bishaaraba marka saan la soo karinaya mid daboolay saliid marka ku shubtid ha daboolin hada daboolto dhiididaya biyo yeelanaya marka ma la rabo inuu biyo yeesho biyaha marka hore lagu kariyaa laakiin marka dambe saliida ku shiilayna oo ma daboolayno biyo inuu dhalo marno samahan marka ka faa'iideysta insha Allah marka noo soo shiilmo oo marka ugu dambayso oo soo gaduud hilibku bislaado aan isku soo laabanayna insha Allah marka ka faa'iideysta insha Allah haatayda wali waa karaya hilibki marka uu dhow yahay laakiin wali waaye bedelka aan saliida ku kariyay waxa ku karsan kartaa subag hadii ilmaha subag ku cunayaan waa ugu karin kartaa dhib ma lahan marka sidaas ula socda hada bes wax yar kadib waa ka dejinaya marka insha Allah soo u jilacay iyo marka la idin wadaagi doona insha Allah asxaabtayda soo u jilacay hilibka soo noqday insha Allah beris waxa idin tusi doona hada maqrib waa la joogaa salaad maqrib waa soo tukanaya insha Allah bes waaye hada wax yar kadib waa ka dejinaya dibka insha Allah waa inoo beris wax insha Allah hadii Ilaahay idmo السلام عليكم asxaabtayda subax wanaagsan xalay markaan video duubay hilibka shiilay waxay ahayd habeenay ahayd maqrib ahayd marka hadda subax waaye quraac waaye ma fahanteen quraacda meesha noogu diyaarsan hilibkeena waa kan sidaan quruxda badan ku soo baxay soo jilcan yahay oo aragtaan ma sha Allah tabaaraka rahmaan wakaasa hilibka hada marka hore dheecaankiisa ku karisid wuu jilcaaya markaas kadib maxaa la dhahaa shiishid oo saliid ku shiishid wakaas hada ka faa'iideysta saartayda qaaliga wiilasha loo faa'iideynaya ma fahanteen wiilasha iyo iskaabulada iyo loo faa'iideynaya ma ahan gabdhaha badana oodkac sida loo kariyo way yaqaanaan laakiin dadka aan aqoonin iyo wiilasha loo faa'iideynaya ma ahan oo kaliya gabdha bas in wax la baro ma fahanteen channelka gabdha iyo wiilal way ku xiran yihiin
marka ka faa'iidaysto walaalay qaaliga. Assalaamu calaykum. bedelka aad maxaa la dhahaa bedelka aan ku kariy saliida subaga ku karsan kartaa, laakiin anaga ilmaheena subaga ma jeclo, gurigeena subag lagama jeclo. ilmaheena hadda subag soo u raaxataa way ma tagayaan, marka saas darteeda ugu dayay subag wax yar oo ku carfisan kartaa, laakiin aan kuma darin saliid bas ku kariyay. marka haddii aad subag jeceshahay subag waa ku darsan kartaa, wax dhib ma lahan. anaga subag guri lagama jeclo, marka waa ka dhaafay. wixii inta lagu daalo hadana ilmihii ay diidaan oo waa dhib soo maahan. maasha Allah tabaaraka raxmaan. ka faa'iidaysta hadda walaalahay qaaliga. waa ka sahde maasha Allah tabaaraka raxmaan. intaan haysanin ilaahay ha siiyo, intay haysatan Allah u barakeeyo, anagana Allah naga dhigo kuwa nimcada rabbigooda xusa oo weyneeya. alxamdulillaah. marka ka faa'iidaysta walaalahay qaaliga. assalaamu calaykum.